kulan wacan daawade bartan waa xogta qarsoon muuqaalkani waxaan ku soo koobayaa wararkii ugu dambeeyay ee kiiska Ikraan Tahliil xilka joojinta Fahad Yaasiin amarka madaxweyne Farmaajo iyo go'aanka Roble muuqaalkani ayaan kaga hadli doonaa madaxweynaha Soomaaliya ayaa amray inuu shaqadiisa sii wato Fahad Yaasiin oo xilka madaxa hay'adda sirdoonka Soomaaliya ahaa oo uu ka qaaday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble bayaan uu soo saaray madaxweynaha waxaa lagu sheegay in go'aanka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Roble uu yahay mid baalmarsan xeerarka oo aan waafaqsanayn dastuurka dalka madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo isagoo ka jawaabaya qoraal uu soo saaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kaas oo shaqada ugu joojiyay madaxa NISA Roble ayaa xilkaasi ku meel gaar ah ugu magacaabay Sareeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba waxay u cugsanayeen qodobo ka dhigan dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya warbaahinta ayaa sheegaysa in ra'iisul wasaaraha ay ku muuqatay inuusan ku qancin qoraalka ka soo baxay NISA ee ku saabsan dilka Ikraan Tahliil in xogta la siinayo golaha amniga qaranka war-saxaafadeedka ra'iisul wasaare Roble oo xilka uu joojiyay Fahad Yaasiin waxaa lagu yidhi markii ra'iisul wasaaruhu garwaaqsaday in warbixintii hay'adda NISA ee ku saabsaneyd kiiska Ikraan aanay ahayn mid lagu qanci karo ra'iisul wasaaruhu wuxuu shaqada ka joojiyay agaasimaha guud ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir qoraalkaas oo ka soo baxay xafiiska agaasimaha hay'adda sirdoonka iyo sugidda qaranka Fahad ayaa lagu sheegay in arrinta Ikraan ay tahay mid xasaasi ah uuna dalbanayo kulan amni wuxuu intaas ku daray in maadaama laga dalbaday inuu warbixin ka soo saaro xaaladda halkii ku dambeysay sargaalada Ikraan Tahliil in loo baahan yahay in kulan ay isugu yimaadaan golaha amniga qaranka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu ka dalbaday agaasima Fahad inuu warbixin degdeg ah oo ku saabsan xaaladda sargaalada Ikraan u soo gudbiyo xaaladda sargaaladan ayaa waxa ka soo baxay warar isburinaya iyadoo qoyskeeda ugu wardambeysay in ka badan 2 bilood ka hor ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa shalay la kulmay qoyskii ehelada Ikraan Tahliil Faarax isla markaana la wadaagay dareenkiisa ku aadan kiiska Ikraan oo dhawaan dawladdu ay sheegtay in shabaab ay dishay warka ka soo baxay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waxa uu burinayaa xilka qaadista ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha xukuumadda ayaa xeeraryaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida faray in baaris dhammaystiran uu ku sameeyo kiiska Ikraan Tahliil kadibna loo gudbiyo maxkamadda awood u leh arrintan agaasimaha shaqada laga joojiyay waxaa la farayaa in xilku ku wareejiyo muddo 3 cisho gudahood waxaase la farayaa dhammaan hay'adaha ay kala dhaxayso shaqada agaasimaha guud ee hay'adda inay gacan ku siiyaan hoggaanka ku meel gaarka ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay xafiiska Roble dhankiisa madaxweyne Farmaajo qoraalka ka soo baxay waxaa lagu yidhi go'aanka ka soo baxay ra'iisul wasaaruhu Maxamed Xuseen Roble inuu yahay mid baalmarsan xeerarka oo waafaqsanayn dastuurka dalka waxaa la falayaa taliyaha hay'adda sugidda sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin inuu sii wado hoggaanka hay'adda sugidda sirdoonka qaranka si waafaqsan dastuurkii wareegtadii uu madaxweynuhu ku magacaabay ayaa qoraalkaas la daba raaciyay hay'adda sugidda sirdoonka waxaa la farayaa inay horkeento golaha amniga warbixinta laga sugayay marka la mudeeyo kulanka ugu horeeya ee golaha amniga ayaa sidoo kale warbixinta la raaciyay waraaqda Fahad Yaasiin uu u diray ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha lana ogeysiiyay gudoomiyaha golaha shacabka iyo wasiirka amniga xasan xundwey jimcaale waxaa lagu yidhi naga guddoon salaan qadarin mudane madaxweyne annagoo garwaaqsan marxaladaha muhiimka ee waddanka uu marayo haddana fulinayna amarka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xeerinayna xaqulaanshaha hay'adaha kala duwan ee ka mid ah golaha amniga qaranka kiisaska iyo warbixinada xasaasiga ee taabanaya amniga qaranka tixgelinayana xasaasiyadda kiisaska sargaalada Ikraan iyo jihooyin kala duwan ee ay taabanayso waxaa si xushmad iyo sharaf ku dheehan tahay kaaga codsanaya inaad naga ogolaato inaan warbixinta kiiska sargaaladaas ku soo bandhigno shirka golaha amniga qaranka oo wada dhan ayaa uu ku yiri Fahad Yaasiin waraaqda u diray ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha haddaba arrintaas waxaa beeniyay al-shabaab kal hore lagumana qancin jawaabaha kala duwan ee ka soo baxaya dawladda Ikraan waxay bishii Agoosto ee sanadkii 1996 ku dhalatay Muqdisho waxay ka mid tahay dhalinyarada dibadda wax ku soo baratay kadibna dalka dib ugu soo laabtay waxayna khibrad in muddo u lahayd shaqooyinka xafiisyada dawladda iyo ilaamaha amniga gabadhan ayaa in ka badan 5 sano ka hor waxay ku biirtay hay'adda sugidda sirdoonka qaranka NISA iyadoo ay madaxii amniga internetka ee hay'addaas markii ugu horeysay oo NISA ku biirtay waxay ahayd sanadkii 2017 sidoo warbaahintu sheegay taliyihii hore ee sirdoonka Cabdilaahi Maxamed Cali Sambalolshe kadib waxay shaqada ka bilowday xafiiska gudoomiyaha gobolka iyo duqa Muqdisho agaasimaha ka ahayd xoogaa kadibna Soomaaliya ay ka baxday Ikraan inkastoo markale dib ugu laabtay hooyadeed waxay sheegtay in markii ay baxday aqoon kororsi waaday dalka Ingiriiska inta badan wararka isla dhaxmarayo waxay sheegayaan in Ikraan la abduubtay inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn cidda abduubatay marka laga soo tago eedeymaha gabadhan hooyadeed Qaali Maxamuud Guaad waxay sheegtay in gabadheeda iyadoo oo joogto guri u dhow xarunta sugidda la soo wacay kadibna gaari lagu kaxeeyay guriga ay ku sugnayd wuxuu ku yaalaa agagaarka xarunta sugidda oo goob amnigeeda si weyn loo ilaaliyo
qaali maxamuud oo waddanka turkiga ugu timid si ay gabadheeda ugu raadiso ayaa jiri jiray warbaahinta ugu qabatay muqdisho waxay dowladda ka codsatay in la caabiyo sidii ay gabadheeda dib ugu weli lahayd sidoo kale nabadoono ka soo jeeda beesha ka dhalatay gabadha ayaa ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo helo ikraan waxay muhiim u ahayd sirdoonka Soomaaliya waxaana la tilmaamay inay ka mid ahayd saraakiisha muhiimka ah hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka NISA balse kiiskeeda meel baalmarsan ayaa la mariyay hagaag daawada muuqaalkani maanta waa naga intaas nabadgelyo